waxaan xafiiskiisa ay ku soo booqanay agaasimaha waaxda ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid Yaasiin oo balan wax ka weydiin doono joogitaanka lagu sameeyay tartankii gobolada hablaha Soomaaliland ee lagu waday inay furmaan 17 bisha oo ku beegan maanta oo Khamiisa bal agaasimo waxaad nooga warbixisaa qaabkaad u joojiseen tartankii hablaha ee la filayay in maanta la bilaabo maanta oo bishu ay tahay 17 waxaan joojinay tartanka lagu sheegay ciyaaraha gobolada ee hablaha waxaan ku joojinay warqad ka soo baxday xafiiskayga sababtan markii hore tartanka waanu ka warqabnay wana lagu wargaliyay waxa kale oo ka warqabnay in habluhu ay leeyihiin garoomo u gaara iyadoo shuruudu ay ahayd inaan wax diinta islaamka baalmarsan aanay la iman oo ay kamid tahay in ay rag daawadaan iyo in muuqaalkooda la baahiyo oo baraha bulshada lagu baahiyo tartankanina wuxuu ka mid ahaa tartamada ay qabtaan Ubax Inspire and Fitness Center oo ku yaala magaalada Hargeysa oo ka ah goob hablaha u gaara oo aan cid kale la wadaagin oo aan ka warqabnay waxa soo kordhay in labadii cisho u dambeeyay saxaafadu TV-yada iyo baraha bulshada ay yaaleen sawirro hablihiya qaar fiidiyoyada ka muuqday waxay ahaayeen iyadoo inama ay dhex taagan yihiin hablihi oo ay bixinayaan waraysi ahaan waxaan taageerayaa gobol Eblaayo goobtuna ay tahay isla garoonkii hablaha lagu waraysanayay muuqaalkii habluhuna ay ka muuqdaan taasi arrintii aan isku ogeyn ee shariicada diinta islaamka baal marsanayd ay ahayd arrinta labaad ee soo kordhay waxa weeye in barihii bulshada la soo dhigay sawirradii hablaha oo qaarkood saraawiil gaaban xidhan yihiin arinta falcelin bay ka keeneen culimadii iyo waxgaradkii reer Soomaaliland sidaa darteed waxaanu joojinay tartankaasi in la qabto ilaa dib loo saxayo hawlaha masaad sheegtay waxa tiriyeen wali horta tartanku ma bilaabmin oo maanta uu bilaabmay hore waxa loo shaaciyay furitaanka tartanku inuu noqonayo maalinta Khamiista oo kaliya ta oo sheegeen ya hablihii oo ku yara jiray diyaar garow waxay xidhnaayeen dariiskii caadiga hadii yihiin shaararkii hadii yihiin haafafkii iyo sidoo kale xijaabkii aan xidhan yihiin marka sawirrada kale aad sheegaysaan aad leedihiin sawirro ay surwaal xidhan yihiin halkaad ku aragteen habluhu mar quriya taba tartankii ma bay guda galin be goobta inamo ciyaaryahanna ah oo leh gobolkaygii saaxil baan taageersanahay waanu ku kalsoonahay cid noo ciyaaraysa gobolkaygii Maroodi Jecel baan taageersanahay gobolkaygii Hebel baan taageersanahay muuqaalada idinka laftiina baahiyay taasina waa mid aan sharciga waafaqsanayn inay inamaynta soo dhex istaagaan habliyo tababaranaya ay la joogaan waa mid aan shariicada islaamka waafaqsanayn arinta kale ee hablaha saraawiisha gaaban xidhan baraha bulshada oo dhan bay dhex taallaa surwaalada gaagaaban aad aragteen in maaha hablo Soomaaliland ama lixda gobol ee Soomaaliland ma aha waa sawir hore oo waqti hore la galay dalkeenana waliba ma aha maxaad ugu saleynaysaan sawirka iyo hablihiina gobolada Soomaaliland ee loodan karo markasta way asturiyihiin horena way ciyaari jireen oo meedan arki jirin muuqaaladooda waxa soo dhigay dad hablihii kamida oo gobolka ah marka arintaasi waxa weeye arin iska cad runtii waxa weeye arinta ay dadku aad uga falceliyeen ee u baahan in halka lagu joojiyana waa arintaas ee dhaqan xumada ah ee aan diinta iyo shariicada waafaqsanayn hadii ay yihiin kuwa kale oo meel kale waa arin fursadan lagu soo beegay oo lagu laday marka wax allaaliya wixii shaki iyo muhmal uu ku jiro ka hor imanaya diinta islaamka waa joojinaynaa anagu muddooyin badan bay soo ciyaareen hadii la yiraahdo horyaalay soo dhigteen maxaa la koobabay soo kala qaadeen kulay wasaaradahana waxba uma qaban jirin oo inta badan iyaga maxay heedayay dhinacooda isku wadi jiray marka idinkoon taaba ka warqabin aydan koobkana xitaa aydan inta badan aydan ka gacan geysanay soo qaban qaabiyeen ma la oran karaa waxay noqonaysaa joojitaan hablaha ama maxaa la yiraahdaa hamigooda aad ka sareeyad ku diidantiin waxaanu qabanay tartamo hablaha ah oo kubadda kolayga ah waxaanu u qabanay orodo ay ka qayb galeen iyadoo mar walba shariicada diinta islaamka ay waafaqsan tahay oo aan la baalmarayn hablaha wixii gacan qabasho ah iyo tartamada ay ciyaarayaan waanu ka warhaynaa gacan baanu siinaa anigu shakhsiyan xafiiska wasaaradda 3 maalmood ayaan tababar ku siinayay inay sharciga kubadda cagta inay bartaan law of the game cidna aan lacag ugu siinayn waxay ahayd inaanu u faa'iideyno aqoonta oo aanu kor u soo qaadno
wixii aanu gacan ka siin karno waanu ka siinaynaa laakiin waxa barwaaqo kufuwan axad baa isku fuuqsatay wax kastoo shareecada islaamka baal maraa waxa weeye halkiisa lagu joojinayaa haddii qaabka waxay ka bedelaan dadka abaabulay iyo sidoo kale dhalinyarta ciyaaraysa habluhu ka wasaarad ahaan maxay idin ka qorshaysan weynina haddii dalal badan oo islaamiya baa leh goobo ay habluhu ku ciyaaraan nooc waloo ciyaara bay habluhu ciyaaraan xaq bay u leeyihiin nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sawjadiisii caaisha ee fadliga badnayd 2 jeer bay baratameen marna way ka dheeraysay markii hore markii labaadna nabigu isaga ka dheereeyay axaadiista nabiga laga soo wariyay weeye rasmiga ay caaisha sheegtay arinta islaamku wax uu ka qabaaday meel asturan bay ahayd way asturnayd culimadeenu sida ay fadwooto in ay hablaheenaasi u ciyaaraan ayaa loo ciyaarayaa oo aan ku dhiiri galinaynaa wax kasta oo aan shareecada diinta islaamka baal marsanayn waanu gacan baanu ka siinaynaa waanu ku garab taaganay laakiin wixii shareecada diinta islaamka baal mara halkiisaan ku qabanaynaa ku joojinaynaa dastuurkeena ku qorantay wax kasta oo khilaafa diinta islaamka in aan la qaadanayn inay dhaqankeena waafaqaan iyagay u dan tahay bulshaday u dan tahay islaamnimadeena u dan tahay dhaqankeena suubanaabay u dan tahay inaanay sidaa ku niyad jabin ma aha in ciyaaro oo dhan laga joojiyay waxa laga joojiyay tartanka muuqaaladiisa aan shareecada waafaqsanayn ay baraha bulshada galeen baa la joojiyay laakiin dhiirigelintii iyo inay ciyaaraan iyo meelo gaar ah inay ku ciyaaraan iyo inay caafimaad ahaan u ciyaaraan intaba waa arrin aanu dhiirigelinayno waa arrin ay wasaaraddan u taagan tahay waananu garab istaagaynaa